السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كودي بيشي كوي تنوات كنا أفر بقلا فرتين تدوك بيغان سغالي تونكي بيشي أفراد لوكم لاتن إلح أنا إيته لكن هاد وركا أخرناي ولا باتن كواي بيشي أفراد لوكم لاتن إلح and Donald Trump ayaa shaaciyay howlgal badeed oo lagu qaaday markab Iiraan ah. Tehraanna waxay ku tilmaamtay burcad badeednimo kana digtay. Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in ciidamada badda Mareykanka ay fuliyeen howlgal military oo ka dhacay gacanka Cumaan, halkaasi oo markab xamuul oo weyn oo Iiraan leedahay lagu magacaabo Toska lagu qabtay. Sida uu sheegay, markabka ayaa diiday digniino badan oo lagu amray inuu si istaago, taas oo keentay in markabka la beegsaday laguna dhuftay qaybta matoorka si loo joojiyo dhaqdhaqaaqiisa. Ciidamada Mareykanka ayaa markabkan dusha ka fuulay kadibna si buuxda ula wareegay iyagoo hadda baaritaano. Waxa uu sidoo kale taliska dhexe ee Mareykanka CENTCOM ayaa xaqiijiyay in markabka la hakiyay kadibna lagu dhuftay qolkiisa matoorka isagoo ku sii jeeda dekedda Bandar Abbas. Dhanka kale, Iiraan ayaa si kulul ugu falcelisay weerarka, iyadoo xarunta militariga ee Qatam al-Anbiya ay ku tilmaantay dhacdadani xadgudub badeed, xabad joojin iyo burcad badeednimo caalami ah. Waxayna sidoo kale si cad u sheegtay in ciidamada Iiraan ay si dhow ugu jawaabi doonaan weerarka Mareykanka. Xiisadan cusub ayaa imaanaysa xilli la filayo wada hadallo cusub oo u dhexeeya Washington iyo Tehran, balse warbaahinta Iiraan ayaa sheegtay in aysan jirin qorshe ay kaga qaybgalayaan wada hadallo cusub ee waqtigan. walaalayaal, intaas raba inaan soo gabagabeeyo qodobkan oo degdeg na soo gaaray. Wixii war kusoo kordhana waa in la socodsiinaya. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.